tiro gaadhaysa 4,000 ayaa u fadhiisatay sanadkan imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo hoose ee magaalada Burco oo maanta si rasmi ah uga bilaabmay Somaliland. tirada ardayda dugsiyada hoose ayaa lagu qiyaasaa 2,984 arday halka ka sarana ay u fadhiisteen arday gaadhaya 1,722 arday oo ka kala yimi dugsiyada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay. mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ayaa faahfaahiyay qaabka uu dhacay imtixaanku. marka ugu horeeya waxaan u duceynaynaa ardaydaas dugsiyadii sare dhamaysanaysa iyo kuwii dhexe marxaladaha ka gudbaya in ilaahay ku guuleeyo imtixaanka tacabkoodii ardaynimo iyo kii waalid iyo kii dalka uu geliyay bana aanu khasaare noqon ee ay guul iyo magac fiican ka soo hooyaan baan u rajaynaynaa. waxaanu se kula dardaarmaynaa kuna adkaynaynaa qishkii wax la yidhaahdo waa lala dagaalamayaa ardaygu inuu kalsooni qaato oo uu isagoo isku kalsoon imtixaanka u fadhiisto. number 1 waxa la yidhaahdaa moobilka ardaygii lagu arko isagiyo moobilkuba dibadday u baxayaan maadadaas waa cancel. dadweynow iyo ardayow waxaanu halkan idinka cadaynaynaa ardaygii moobil lagu qabto in uu dibadda yahay oo maadadaas ay tahay laga baabi'inayo oo aan waxba looga soo qaaday. inkastoo si habsami ah uu socdo imtixaanku ayaa haddana waxaa jira arday muujinaysa cabasho ku aadan imtixaanka. iyo iskuulka smart baan ka socdaa waxaan bartaan wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare uga sheegaya in horta si gaar ah iskuulada haddii loo eegayo cadaalad ma jirto sanadkan oo iskuulada qaarna markaad soo waraysato waa laga sii daayay imtixaankii iskuulada qaar oo Jawaar Cabdinaasir aan ku geynaa kamid yahayna imtixaanka waa lagu adkeeyay. marka waxaan u sheegnaa wasaaradda inaan cadaalad jirin cadaalad hal ogaado mar walba cadaalad baa la keenaa haddana cadaalad ma socoto cadaalad ma jirto saa ogaada waan ku maasantii deynta haddii ku cadaalad ka samaysan laakiin si shaqaale wasaadkiina waxaan wada. si kastaba ha ahaatee sanad walba waxaa kordhaya tirada dugsiyada iyo ardayda u fadhiisata imtixaanka magaalada Burco iyadoo maanta si rasmi ah Somaliland uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ayaa magaalada Burco waxaa ka qayb galaya arday gaadhaya 4,706 maadaama ay tahay magaalada labaad ee ugu dugsiyada badan leh Somaliland. Sakariye Ilyas Jakarta warkaasteen Burco.